iyada oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku dhawaaqay in muddo 15 cisho ah la joojiyo waxbarashada lana fasaxo ardayda sabab la xiriirta ka hortagga cudurka coronavirus ayaa waxaa maanta si rasmi ah goobaha waxbarashada ugu dhaqan galay amarkaasi. xarumaha waxbarashada oo aynu booqannay ayaa ahaa kuwa ardayda laga fasaxay isla markaana dhaqan geliyay awaamirtii ka soo baxday dawladda. dugsiga hoose dhexe iyo sare ee macalin jaamac waxa uu ka mid yahay goobaha waxbarashada oo ay maamusho dawladda Soomaaliya wuxuuna dhaqan geliyay muddada dawladdu ay ku dhawaaqday in la joojiyo waxbarashada. Khadiijo Cali Aadan waa maamulaha iskuulka macalin jaamac waxayna inoo xaqiijisay in maanta ardayda ay fasaxeen iyada oo loo hogaansamayo talooyinka caafimaad ee la xiriira caabuqa coronavirus oo ay dawladda Soomaaliya soo jeedisay. waan fasaxnay amar ka soo baxay dawladda looga gabanayo cudurka soo socdo looga hortagayo ayaan u fasaxnay sidaa darteed waana qaadanay amarkii waan fasaxnay ilaa 15 cisho waa la wadaagna waa u sheegnay waxaan idhaa xaafadihiina ku ekaada gurihiina ha ka soo bixinina cudurrada laga baqayaa marka is ilaaliya nadaafadda waa u sheegnay gacmihiina si fiican isaga dhaqa wasakhda iska ilaaliya bannaanada iyo hawareegnina ilaa amar dambe waddanka uu ka xasilay. tani waa jaamacadda Jazeera oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho waxaa ka dhaqan galay amarkii dawladda Soomaaliya ay soo rogtay ku saabsanaa in la joojiyo waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada si loo yareeyo cudurka coronavirus-ka kiisaskiisa oo kiis ka mid ah lagu arkay Soomaaliya. Dr. Luul Maxamed Maxamuud oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Jazeera ayaa TV-ga Universal u sheegtay in ardayda jaamacadda la fasaxay muddada dawladdu ay amarka ku bixisay sabab la xiriirta caabuqa coronavirus-ka. Dr. Luul oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa soo jeedisay talooyin caafimaad oo la xiriira caabuqa coronavirus. hadda qofku markuu wax baranaya xataa waxa loo baahan yahay maskaxdiisa joogto waxaan u maleynayaa ardayda in la fasaxo wax fiican waay dadka inaysan isdajiyaan aad u fiican tahay dadka walwal badanaan galay walwalkan in la iska dajiyo ilaahay la tala saarto dadaal wixii la sameyn karana in la sameeyo. Soomaalina waxay ka mid tahay caalamka ma ka baxsana caalamkan ka mid nahay dadkan dhinac kasta u safraan dad badan wadanka soo gala kuwana waa ka baxaan wadamadii oo maxay ahaato dad Soomaaliya ku nool oo cudurka laga helay qaarkood ay yimid qaarkood ay baxay marka intaba waa isdhaxgalka waa badan yahay saadarteed horta ka hortaga anaga muhiim nagu ah ka hortaga sida loo sameyn lahaa maadaama cudurkan uu yahay cudur aad halistiisa leh qatartiisa leh dhimashadiisa badan tahay sida adduunka kaleba ka jirta annagana aanba ognahay sida aan annaga nahay weli marka loo fiiriyo aan cabsi badan aad aan ka qabno. ardayda laga fasaxay jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada ayaa dhankooda soo dhaweeyay talooyinka caafimaad ee la xiriira caabuqa coronavirus-ka. aniga wixii oo dhammaan jaamacadaha qabaan aan kala simanahay oo aan ku faraxsanahay cudurkan horta adduunka dhan oo ku faafaa la sheegay laakiin aniga ma sha Allah inkastoo dad muslimiin aan ahay haddana si kastoo xataa guri la joogo cudurkan waa kaaga daba imaan karaa laakiin ummadda waxaa dhihi lahaa xataa salaada hala badiyo iyo soonka hala badiyo sadaqadana hala baxsadaa dhihi lahaa insha Allah. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho.